bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan YouTube-kan waa 24 bisha Afraad 2026 maqaal wareedkan soo socda waxaan ku eegi doonaa macluumaad ku saabsan mucaaradka Soomaaliya oo si cajiib ah uga mudaharaaday magaalada Muqdisho tolo maxay dalbanayaan su'aalo kale halkan ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto oo aad share gareyso oo wixii aragtidaada aad halkan noogula wadaagto dadka YouTube daawadana inta badan muuqaalka leega ma saaran saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inaad leega saartaan oo noo share gareysaan aad baad u mahadsantii wixii aragtidiinana aad halkaasi noogu soo gudbisaan aynu ku bilownay saaxiibayaal siyaasiyiinta mucaaradka oo ay wehliyaan qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa mudaharaad ka dhan ah dowladda Soomaaliya ku qabtay xarunta xisbiga himilo qaran oo ah guriga Sheekh Shariif waa sida warka loo dhigay siyaasiyiinta oo qayb ka ahaayeen mucaaradka oo ay kamid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Cabdiraxmaan Caynte Cabdiqaadir Cusable iyo mas'uuliyiin kale mas'uuliyiinta ayaa watay istiikaro ay ku yaalaan sawirada Saadiya Macalin Cali Najiib Cali Cusable iyo Shurmaake Maxamuud oo kamid ahaa dhalinyarada xisbiga himilo qaran kuwaas oo dhammaantood u xiran baa la yiri dowladda dhexe ee Soomaalida madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo mas'uuliyiinta kale ayaa ku dhawaaqay inay garab istaag u muujinayaan Saadiya oo ahayd gabadh dhalinyaro ah oo bajaajley ah sidoo kale ay dalbanayaan inay si degdeg ah looga sii daayo xabsiga sida warka loo dhigay waxaan farayaa wiiri hay'adda garsoorka iyo amniga inay si degdeg ah oo xorriyadooda ay dib ugu soo celiyaan dhalinyaradan ay kamid yihiin Saadiyo ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaalida Shariif Sheekh Axmed intaas kadib mas'uuliyiinta mucaaradka iyo dhalinyarada Soomaaliya ayaa yeeshay kulan ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyaga oo kulankaasi ay ka qayb ka ahaayeen wadatashiga mucaaradka sida warka loo dhigay saaxiibayaal wadatashiga mucaaradka ayaa kamid ahaa hadalka sida loo dhigay saaxiibayaal mucaaradka ayaa boorar iyo istiikaro halkaasi ku soo bandhigay waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal mucaaradka ayaa sheegay in habka loola dhaqmay Saadiya oo dhaawac weyn qabta iyo samacadilka dowladda iyo hay'adda sharciga ayay sidoo kale waxay ku eedeeyeen inuusan jirin wax sharci ah oo loo maray xarigeeda isla markaana aysan jirin wax dacwad ah oo loo haysto waa sida ay warka u dhigeen saaxiibayaal isqabqabsigan waxyaalihii dambe ka soo cusboonaada muuqaalada kale ay YouTube-ka ayaad ka daawan doontaa sidoo kale muuqaalkan iyo muuqaalo kale waxaad ka daawan doontaa Facebook-ga wariye wacane adigoo mahadsan halkaas naga soo booqo YouTube-kan oo kale yaad mahadsan